xaqiiqada markaynu eegno suuqa mukhadaraadka aad baynuugu jiraa, xabsiyada aad baynuugu jiraa, musixaadka caqliga meelahan dadka dhimarka aad baynuugu jiraa. intaasi waa inta marar badan aynu moodno inaan gacanta lagu haynin. mararka qaarkoodna waxaan isleeyahay in aynu moodayno inaynu wax tarnaayana kasii fog. inaha jaamacaadka inooga baxay ee wadanadan wax ku bartay qaybo ka mid iyagana iyagiyo diini way kala tageen. إحساسياتك بدن وحبا أخريمينه وأنت awareness كيني أنت نيجي بس أما كبدن لكن وحن ربنا إن أنت الممنوع ورهنتي تقولي إنه هيسنا وضط بالآدم باوجه هنتي في عن هيدا دان قراعنا وبرازيليانا باولو كويلو بيدا دان باولو كويلو وأنا ما كبوقت أقول بدن الدنيا ده اللي يفسد له أول مصلحة في ليا 150 مليون كوبس كبدن يبوكس كسواريا قولي كونتن مليون وحكا بدن وده second man بيدا دان الدنيا ده بقى ساو حبا بالشكرية وأنين أهان شري واقي هوري قولدان أدب كي وحترية هاسها هي الرواية ده هي وحا سمية مركي دمانا نقضي قراه نوفالدان يا وحا القرية وحا كان سمية إما كان أنه يونايتد نيشن كابو ملاوية هي رجل السلام كدوني ده قصة كيسة وحا كامدة قصة يرو كوبان شكا يرو كوبان بغوري شكا دا كوبان وغوري وحيولي أضيبا جريدة داخل السنة يبولي دبتنا إنا يرو دالي أي مشغولية مركوش هذا الركبة كوير بسؤال ويديو مشغولية كان يرسك مشغولي بويسنا يسيري مركا انتو جريدة دي الرقي أيو حاشي ما بك الدوني دو كسوري انتو صوت حي أيو غوغوي كاسو انتو دي بيبو دالكا فريسو دوني دي بسوق ركب ما بك الدوني دا سماه وحسال هادا كاير درتي كوكو نغن مايو قصة waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqo gaadhayn markuu ka yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi markaasuu yiri waatan waan sameeyay odaygu su'aal buu weydiiyay war ma hooyadaaba ku dhigtay jugraafiga buu ku yiri markaasuu yiri may hooyo jugraafiga ma dhigto dasaad u samaysay buu yiri waraaqdan aad ii dhiibtay buu yiri xaggan maabku ka sawir xaggeeda kale qof baa ku sawiraa qofkii uma isku hagaajiyay buu yiri gacanta iyo lugta iyo adkiyo isuge de dunidina way isku hagaagtay markaa qofkii isku hagaajiyay dabeetana weedii inanka yar bay ka dhigeen weed xikmada وسمع معان صومالي ku baxaan oo kale weedhaas waxay tahay عندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم بيري markii aan qofkii bini aadamka hadhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihiin ilmaha yar uu iska yiriye that's the real world noloshu waa taa qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa qofka bini aadamkii markuu dumana noloshu iyo duniduba way duntaa qofka bini aadamka caqiidadiisa mabaadi'diisa valueskiisa xorriyadiisa cadaaladii waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan markay dumaanna wuu dumaa ولذلك baa imaka aqoon-yahanada waaweyn ee reer galbeedku aad u qaylinaya ay leeyihiin xadaaradeenni way dumaysaa maaha cid ka xoog badan inay timi waxay leeyihiin trendkaynu hayno wajahadaynu u jeedno ayaa ah meelay wax ku dumayaan wadana waaweyn oo dunida ka midaba waxay tilmaamaan in wax kale ma haysanay bini aadam baanu haysanaa markaanu bini aadamka maal gashanay ayaanu nolosha adduunyo dhan bedelay yani wadankan yar ay yidhahdaan jabaan xulay qofka bini aadamka aanu maal gashanay dabeetana noloshaanu bedelay sida awgeed culimada ka warranta sociology bulsho kuwa ka warrama psychology kuwa ka warrama dhaqaale iqtisaad economics kuwa ka warrama siyaasa kuwa ka warrama tarbiya iyo educational policy waxoo dhamme waxay yidhaahdaan one thing bay ku salaysantay bay yidhahdeen philosophy qofka bini aadamka maxaa u cuntama maxaa u fiican school of thoughts ka kala gadisani waxay sifaynayaan qofka bini aadamka wixii ay u arkayeen iyagu inuu u fiican yahay dabeetana politicalka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ijtimaaca iyo bulshada iyo waxoo dhan waxay ku salaysan tahay qofkan bini aadamka maxaa u fiican see loo horumariyaa saddex aragtiyoodoo kooban bay dunidoo dhammi rumaysantay markaa qola u aragta qofka bini aadamka inuu shaydaan yahay imtixaan inuu yahay asalkiisu inuu shariyay markaa systemka iyo dhaqaalaha iyo wuxuu dhammayn ku salaysnaadaan qofkan in la xakameeyo qofkan in la rifo qofkan in la controlo how much you do that ayaad nolosha horumaraysa bay qabaan waa maalan even philosophy Christianity baa ka mid ah oo Christianity wuxuu rumaysan yahay in lagu dhashay khati'a qof walba eedii nabi maxamed nabi aadam inay dhinac ka saaran tahay oo dadkoo dhammi dambiilayaal yihiin ay u baahan yihiin salvation iyo wixii rifi lahaa iyo qurunka ka rogi lahaa qayb kaloo ka mid waxay rumaysan yihiin insaanku inuu khayr yahay wanaag inuu yahay waxyarara dulduula ka dhac laakiin waa wanaag waa filosofiyadan maanta Jack Russell iyo nimankaasoo dhammi political issueskooda waxay ku saleeyeen asalka insaanku inuu yahay mid khayra qola saddexaad oo materialistka u badani waxay rumaysan yihiin
insaanku inuu yahay safxa baydaa waa bage madhan bay leeyihin culture-ka foom gareeya waxba kuma jiraan isaga islaamku wuxuu rumaysan yahay qofka bini aadamkii xagga khayrka inuu badan yahay laakiin nawaasic shar oo shahwaat nafsiga waxa kanaya nawaasic alkhayr bayna ku jiraan ina hadaynaahu najdayn inuu yahay labada jid ba inuu qaadi karo laakiin asalku inuu yahay fitra saliima walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim ba ilaahi yidhi bini aadamka waxaan u abuuray axsanu taqwiim yani waxay leeyihin qofka bini aadamka fitradiisa haddii laysu daayo fitradu abuurkiisa yani waxaa jira bay leeyihin qoomaha in philosophy wax axioms la yidhaahdo oo ah waxyaabaha aan proofska u baahnayn oo ah qofka bini aadamka wax naturally u rumaysan yahay maalan haddaan qalinkaa qaado uma baahna daliil inaan caagadaa biyaa qaadi karo bimujarad inaan qalinkaa qaaday baan waxaan garanayaa maxay inaan mujarad inaan caagadaa qaaday biyaa baan waxaan ku garan karaa maxay inaan qalinkaana qaadi karo ila kii weynaa baan sidaa kaye uma baahna bay yidhahdeen daliil sayniska iyo filosofiga iyo waxaan oo dhammi wuxuu ku salaysan yahay waxa ay axiomiska yidhaahdaan si kale haddaanu tilmaamo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya abuurkeennii in ballan laynaga qaaday waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim alastu birabbikum qaaluu bala shahidna rabbigiin ma ahay inuu rabbi weydiiyey ama se sayniska dunida calaamadaha ka muuqda inay sheegayaan inuu ilaahay rabbigood yahay si awgeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya faaqim wajhaka liddiini alxaniif فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله دين تقوم حنيفك الشركة كدر وافقسن فطرة قفك بني آدمك كقومي وجهك قبل المامية هذا واحد لنا هي إنسانك وحو ما بفطرته محمئة نوازع خارجك وحن environment كدبدا وحكا إيمانية أي أنت بدل مية ولذلك النبي يقول حليه إلهي بوحيلي إني خلقت عبادي حنفاء حنابوري الضمه يقول من لما أنتم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الشياطين تاويرارتي أما الشياطين الإنس هالنقضان والشياطين الجن هالنقضان دبتنا يقى الدين توديك كحيي وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا دبو دندن نشوغنو waxa jooga dad trained ah dad la tababaray oo loo tababaray waxa loo dhiibay inay qofka bini'aadamka ka dhaadhicin karaan dadkaasi ha noqdo wasaaradda waxbarashada ilaa tacliim sare ha noqdo iclaanaadka iyo iclaamka iyo aflaamta iyo waxaan dadka sameeya ha noqdo adabka iyo riwaayadaha iyo waxa kan dadka qora ha noqdo waxaasoo dadii waxay u train garaysan yihiin inay qofka bini'aadamka madaxiisa gadii karaan walidalik in western markaynu joogno waxa la dhahaa sinaacatu ra'yi aragtida waa la sameeyaa bay leeyihiin siyaasiyiintu bulshada xaggii la doonaa baa loo jeediyaa waa la sameeyaa haddaba dunidu waxay isku waafaqsan tahay tacliintu waxbarashadu inay tahay meelaha ugu muhiimsan ee isbeddelku ka dhaco waddan walba siyaasiyiinta joogaa waxay jecel yihiin bulshadoodu inay homogeneous group noqoto mutajaanis dad dhan wada jeeda iyadoo diversity tira badan uu ka dhex jiro kala gedisnaan badan ay jirto ayaa haddana waxa la isku dayayaa bulshadaas inay si qura wax u wada aragto si qura wada noolaan karto wada socon karto bulshaday homogeneous ka tahay bay isku xidhnaanshiheedu ka xoogan yihiin isla markaa maamulideeduna ay ka fududahay markastoo dadka aragtidiisu isku dhadhow yahay in la maamulaa waa wax fudud markastoo dadka aragtidiisu aad u kala durugsan tahayna in la isku hayo la maamulaa waa wax adag haddaba waxay yidhaahdaan waxbarashadu waa meesha dadka isku aragtida lagaga dhigo compulsory education bay waddanadani samaysteen dadka waddanka degan oo dhami 10 sano ama 9 sannadood oo waxbarasho waa inaad qasab ku martaa 9 sano ama 10 sano waxa lagu barayaa bulshadan sida loola noolaado hadday afkooda tay hadday dhaqankooda tay hadday valueskooda tay hadday waxa qiimeynayaan tahay bulshadan waddan kale siday u wada noolaan lahayd baa la baraa wixii ka sii dambeeya tacliimina horumarka waddanka buu ka fakaraya xayaat kariima qofku sidii uu heli lahaa walidalik ayaa isticmaalku markuu qabsaday waddanadii muslimiinta oo kale indiya waddan weyn oo islaamiya ahaan jirtay boqortooyin waaweyn oo islaamiyana ka jiri jiray ingiriiska u yimi ayar buu u galay ingiriisku waddanka xoog kuma qabsanin laakiin markii hore meel yaraan shaah ka beertay siiya buu yidhi meel bay siiyeenoo shaah buu beertayo markii dambe wuxuu yidhi waa beertii waa layga weerweerarayaa waxoogaa hubaha lay ogolaado
inaan la soo dogo beerta ku ilaashado security baan u baahnay hub baa loo ogolaaday beertiisi buu ilaashaday markii dambe boqorradii meesha joogay wixii sida Soomaalida isdilayso oo kale isdildilay qoloba mar bay u dustaayoo tiraahdaa waxoogaa hubano qolu taageera sidii ugu wada ka wada qaaday wadakana uu qabsaday dabeetana system of education buu sameeyey system of education kaasa waxa ka waramaya niman culimo raggii waaga joogi jiraya waxa kamid ah nin gabyaaya oo la yiraahdo akbar ilaah al-abadi waa nin lawyer qaadi ahaan jiray markii dambana gabyaa noqday gabayadiisu waxay u badan yihiin gabayadan sufuriyada ee chess u badan ee fukahada dadku inta badan ay qabtaan marka gabay buu tiriyay oo kaga waramayo systemka waxbarasho meesha jira wuxuu leeyahay gabaygiisa markay af Carabi ku tarjumaan Sheikh Nadawi ayaa tarjumaya wuxuu leeyahay yaa xasrata ala fircawn dhahab maxaa murugo raacday ayuu ka waramaya fircoonkii tagay fircawn reer banu Israa'iil buu ka shakiyay Soomaha dawladnimadiisu uga shakiyay deetana xukuma buu soo rogay inaanay wiil dhalin wixii ilme ee reer banu Israa'iil dhalaan in la gowraco la dilo carruurnimada lagu dilo ninkani wuxuu leeyahay markaa alla maxaa ceeb raacday buu leeyahay fircoonkii reer banu Israa'iil kaana calayhi an yunshi'a kulliyatan fi Masr fala yudhkar bifadiicati qatl alawlaad buu leeyahay wuxuun bay ahayd buu inuu system waxbarashiyo kulliyada sameeyo oo ceebta carruur buu laayay uu ka baxsado yani carruurtun buu caqligooda bedeli lahaa buu leeyahay ma waxbarasho sameeyo buu leeyahay oo carruurta caqligooda bedela intuu laynayo ceebta ahayd carruurtu laayay ayuu ka badbaadi lahaa yani wuxuu tilmaamayaa sida ay waxbarashadu u bedesho caqliga bini aadamka walidalik yani filosofaha oo muslima Maxamed Iqbaal loo oran jiray Cambridge University macallinka ka ahaan jiray waxna ka bartay hal qarni ka hor 1905 kii meelahaasi markii dambana Munich University ka baxay waa nin filosofa waana nin gabyaaya inta badan way yartay filosof gabyaa wuxuu ahaa nin dhanna filosofa dhanna gabyaaya oo afkaartiisa markaa ku dhiiba gabay ahaan ayaa wuxuu ka warramay waxbarashada markaas wuxuu ku tilmaamayaa isna tacliimtu buu yidhi at-tacliim هو الحامض الذي يذيب الشخصية وأي سير كبني آدم كأنت دلالسة الكائن الحي أي دلالسة أبو إليه ثم يكونها كما يشاء دب تنسد الضانه أي يذيب قد سكرة وحاصلا معناه دوا محي ما هو برشة جدا نبا مايا هرمرك نولولات أما أدونك هرمركيسة يا آخره هرمركيدو لبضوا وحبرشوا كحرين تين تساس الشيء hadaad rabto adduunka inaad horumarto iyo hadaad rabto aakhira inaad horumartaba labaduba waxay ku xidhantahay maxay waxbarashay ku xidhantahay saa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi aadam markii loo soo diray adduunka kan wacallama aadama alasmaa'a kullaha waxbaa la soo baray isagoo aqoon le buu yimi saas baa diintan islaamiga ah wixii ugu horreeyee soo dega iyadoo meesha ay ku soo degtay ahayd meel saxaara ah waan aqooni ka jirin oo thaqaafa ka jirin oo waxba ka jirin oo dad aqoon tixgeliya dadka ugu fog ah ayaa haddana quraanka wixii u soo hordegay wuxuu iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wax cilmiga iyo qalinka iyo waxa ka waramaya bal suuradii saddexaad ama afraad xataa quraanka soo degta haddana nuun wal qalam wama yasturun bih yani iyadoo laga yaabo عربي waxay u baahnayd inay ugu badnaan lahayd waxyaabo kale ayaa quraankii ugu soo hordagay wuxuu ka waramayaa maxay qadiyatul ilm waayo bulsho ma asaasanto haddaan cilmi jirin ilaahayna nabigiisii Muhammad alayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu gallad iyo manna sheeganaya inuu wax baray wanzala alayka alkitaaba wal hikma wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima ba ilaahi waxa lagu soo dejiyay kitaabka iyo xikmada sunnada waxaana lagu baray waxaanad garanayn baa ilaahay yiri kaasina waa ilaahay dheeraadkiisa weyn baa ilaahay leeyahay alla ku siiyay yani ilaahay wuxuu nabigiisa ugu gallad sheegtay in maxay in wax la baray nabiguna markuu ilaahay bariyay ducada quraanka ugu taala waxa kamid ah waqul rabbi zidni ilman ilaahu aqooni kordhi bal nabigu alayhi salaatu wasalaam salaada markuu tukado subax waxyaabuhu laazimi jiray subax kasta oo akhri jiray waxa kamid ah Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala ilaahu waxaan ku weydiisanayaa cilmi wax tara amal aad aqbasho iyo arsaaq xalaal oo tayyiba subax kasta salaada subax markuu ka baxo
ودعوينكو آخري شري إلهي وحكم قنقلي شري لكن اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع أقون أن وحتر لحين هدبا أقون تقلبيت كتالا ودنا دان تال أركتي دا قفك مسلم كامركا لغاقا وحي سيقو جرتا ووحتر أدون وغبش نوتا دخل نوت markaan waxbarashada ka waramayno waxay yiraahdaan aqoon-yahanadu waxbarashada dunida taalloo dhan saddex qaybood uma loo qaybiyaa waxbarashada dunida taalloo dhan waxaan waxbarashada xoog uga waramaya waxa weeyaan dee ilmahan intaynu iskuul geyno ayna wax daba ku darsanin saawgeed waxaan rabaa inaan tilmaamo waxbarashadu khatarteeda iyo waxa loo dhigaa wuxuu yahay iyo natiijada productkay soo saartay saynu arkan culumta bay yiraahdeen dunida taallaa saddex qaybood qayb waa la kala qarsadaa laysmana siiyo sinaba laysuguma ogolaado basaasnimada dunida ugu weyna iyaday ka dhacdaa qaybna waa laysku qasbaa sankaa layska geliyaa waa laysa siiyaa waa la maalgeliyaa qofka baranaya qaybna waa la kala gataa bay yidhaahdaa waxbarashada dunida taallaa bay yidhahdaan waa saddexdaa qaybood qaybta koowaad ee aan sinaba laysu siin waxay yidhahdaan waa culuum siyaada waa culumta keenta waddan inuu dhaqaalaha dunida ama hogaamiyo ama xoogga dunida hogaamiyo ama waxaan hogaamiyo waa culumta ku saabsan bay leedahay maalan nuclear weapon iyo wixii ku saabsan laysuma ogola ciddii xariiqdeeda xaggeeda soo egtana haddii la tumi karo waa in la tumaa waa culumta ku saabsan cilmi alfadaa cirka iyo waxaan loo diray iyo wixii ku saabsiisan waa culumta ku saabsan hubka oo dhan iyo teknolojiyada ku saabsan waa culumta ku saabsan core ideaha ay leeyihiin shirikaadkan waaweyn ee dunida ka jira shirkadina ma bixiso core idea maalan coca-cola 100 sannadood buu hadda secretiyey oo ay leeyihiin markasta dunida laba qof oo qura og xataa waxa meesha ka jiro oo dhan meel bay ku qarsoontay bangi bay taallaa laba injineer oo qura loo sheegaa waxaasaa la isugu qaldo that's all cid kale ogi ma jirto 100 sannadood bay hadda maraysaa idan aqoomaha dhaqaalaha abuura xoogga abuura taliska abuura waxaa abuura laysma siiyo waxay yidhaahdaan dunida marka la eego basaasnimada ugu badanina waa meesha ay ka jirto waxa ugu badane la isbasaasaa waa in aqoon la xado weliba bay leeyihin waa meelaha inta isku jaalka ay xataa isbasaasaan ay isxadaan sannada qaar bay waxay leeyihiin westranka basaasnimadii ugu badnaa isku sameeyey waxaanay ku saabsiisan tahay maxay core ideas la kala xadayo oo waxaa ku saabsan aqoonta iyada laysma siiyo ninkii agteeda soo marana waa laga durkiyaa waana ta dunida loogu taliyo dhaqaalaha dunidana lagu hayo taas waa qayb kale waxay yidhaahdaan cid waliba way faafisaa dowladdu waliba waxay isku daydaa safaaradaha ay dunida ku leedahay inay qayb ka mida safaaradeeda ka dhigto qaybtaa wax faafisa waa aqoonta ku saabsan bay yidhaahdaan identityga waddanku leeyahay hadday diintay hadday culture-tay hadday values-tay hadday taariikh tahay hadday af tahay safaaradaha dunida safaarad kasta aad timaado safaaraddu waxay leedahay qayb culture-ka ah safaaraddu waxay leedahay maxay maktabi thaqaafi muxuu sameeyaa wuxuu hirgelinayaa taariikhdii waddankan inuu dadka baro waxay rumaysan yihiin valueskooda inuu baro afkooda inuu baro ummad waliba waxay jeceshay afkeedu inuu faafo oo uu dunida gaadho qaybtaasi bay yidhaahdaan waddan waliba deeqsi buu ku yihi dunida inta kale diintiisa iyo dhaqankiisa iyo afkiisa iyo valueskiisa imka western oo dhan baad maqlaysaa waxay leeyihiin xuquuqul bini aadamku ku xidhan yahay donorsku waxay bixinayaan xuquuqda la sheegaya waa maxay waa afkaartay reer galbeedku rumaysan yihiin ama lbgt dheh ama kandhe ama waxandhe waxoodaasay ku xidhan yahay deeqaha la bixinayo waxa la samaynayo politicska booska la iska taagayo idan waa valueskoodii bay faafinayaan waa xun yihiin waa san iyo kaas iska damayso waa valueskoodii bay faafinayaan waddan waliba wuxuu tijaabinaya afkiisa siduu noqon lahaa maxay af international oo dunida laga yaqaano waddan waliba wuxuu raadcaynaya taariikhtiisa sidii loo baran lahaa ay u noqon lahayd kaana sakaa la iska geliyaa waddan waliba inuu maalgeliyo waana meesha ugu badan ee wasaaradda waxbarashadu qabato higher education marka laga yimaado wasaaraddan waxbarashadu waxa ugu weyn ay qabataa waxa weeyaan culture-ka iyo valueska iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta iyo aragtida ay dadku leeyihiin inay ilaaliso oo dadka la baro qaybna bay yidhaahdeen cilmiga ka midi waa qaybta bini aadamku wadaago oo waa la kala gataa uno iyada lacagtaada dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxyaabaha kanaynu sheegno idaarada iyo handasada iyo waxaa la kala barto oo dhan jaamacadkaad fiigaaga haddaad la baxdo waa maxay waa kuu bannaantay deerfar iyada waa la kala gataa un professorkana waad gadan kartaa
jaamacadana ardaygaaga waad keeni kartaa waa suuqa dhaqaale ee furan ee openka idan waxay dhahaan tacliinta dunidu waa saddexdaa qaybood waa qayb aan laysu ogolayn secrets oo cid waliba inay ilaashato rabto qayb shanka la iska gelinayo cid waliba inay faafiso ay rabto iyo qayb mushtarak bini aadamku uu yahay oo cid waliba ay gadayso haddaba inagu markaynu halkan nimi inagaan waxba sidane maran baynu nimi waxaanaynu nimi system waddan leeyahay oo degan oo ka fakeraya culturekiisa dhaqankiisa afkiisa aragtidiisa valueskiisa siduu wax u arkaya ka fakeraya oo u dhigtay wasaarad dhan oo balaayiin min dollaraad ku baxdo waxaynu rabnaa inaynu ku dhex noolaanno waxaynu leenahay markaa waxaynu rabnaa ubadkeennu inaanu identitygiisa luminin inaanu afkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa lumin maxaynu markaa inagu samaynay aynu bixinay waxaynu samaynay malcaamad iyo masaajid malcaamadda maxaynu ku dhignaa inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa that's all inta ugu badan imika baraarug yari soo bilbilaabmaya wax kale lagu dara laakiin inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa waxa meeshan yaalla markaa wasaaradda waxbarashada iskuuladeeda waxa jooga dad trained ah dad loo tababaray qofka bini aadamka ah inay wax u dhigaan oo ka dhaadhiciyaan malcaamadeen iyo masaajideedana waxa jooga nin ama daacad oo raba inuu dadka wax u dhigo laakiin aan la tababarin macluumadii wuu hayaa aqoontii wuu garanayaa laakiin sida ilmahan yare da'dan joogiyo kan da'dan joogiyo saa loola dhaqmee loo traingareeya lama barin tababar ma qabo ama maahee wani shaqo waayeyba oo suuqa shaqada hadduu ka soo helana war malcaamadii cid u dirta anugu shaqaan helay buu leeyahy iska tegayaa hadduu hore shaqo u waayo dadkan afgaran waaye meelaha kanna malcaamaddu joogaya iyo alifdhedaasu wadaya iyo faatixada akhriyo ka idan laba system baa markaa rabnaa inay baratamaan system nin voluntary uu dhigayo ama nin dani baday uu dhigayo waan trained ahayn curriculum trained la tadwiiriyeyna aan wadanin oo aynu rabno inuu afkeenni iyo dhaqankeenni iyo diinteenni dhigo iyo system qof tababarani uu dhigayo khubaro loogu talagalay inay manaahijtooda soo dejiyeen oo loogu talagalay dadkan in laysku milo oo hal mida laga dhigo dhallinyaradeena markaa laba qaybood bay u qaybsamaan qolo systemkaa iskala qabsata oo hore u socda iyo qolo wadiba kari weyda qolada wadi kari weyda guri foqoyra buu ka yimi dhibayna haysata wax badan uma qaban karno ubadka inanka yare isku classka yihiin waa brand name wuxuu xidhan yoo dhami kaba waa brand name kaba daa nigsaanta brand name kolba nigiska yara hoose kalsumada la xidhanayo surwaalkan waxa dabada looga ridaa inaad muujiso brand name inuu yahay nigiskaad xidhantay inaad mid yaroo calala xidhnayn dadkani markaa magac bay wada raadacaynayaan oo sitaan inana haddii shaadhiyo surwaalba loo xidhay meeshuu tegey inantiina xijaab yar baynu ku duuduubna meeshaynu geyn waa la yasayaa waa la dacaydaynayaa waa la maagayaa kii adkaysan kari waaya mid baa afka usoo dhuubaya wuxuu odhanaya war ma rabtaa labadan kabood qurux badan haa baashan yar baa la qaadaayo halka yar baa laga iibiyaa baashan yar qaad 1000 pound berawik baad helaysaa baniinkani macba waxa kan laakiin labadaa kabood inaygaa buu u baahan yahay maalinta hore u qaadaa kunbaabu soo helaa laba kabood oo cusub buu iibsadaa iyo koodh yaroo cusub iyo systemkii iskuulka nin la socon karaya buu noqdaa wixii la watay laakiin dee baasha haddaad bilowda lacagti waa macaantahay marka hore lacag soo hel yaroo quick money baa u geysay laakiin circle-ka mar hadduu galo oo lacagtu dhadhanto waxbarashadan iyo waxani way baxaysaa wuxuu noqdaa markaa akhiiran qof iskuulka ka dhacay oo ama drug dealer caadiya noqday ama gang noqday ama jeel ku dambeeyey ama dawakayba oo musaxaadka caqligaa la geeyey meelaha waalida la geeyey kii kale systemka la qabsaday maxaa ka hor yimaada kii si uun isu manage gareeye adkaystay inan ku yahayba systemka ku jiray 13 year gradekii ka baxay jaamacad u xidhxidhay kaasina laba wax buu la kulmaya kow shahwaad tiro badan buu la kulmaya hablo yaryaroo isku xoqa inama yaryar hablo yaroo la isku sii daayay meel open society ayuu tegaya dad multicultural ah open society wixii adigu aad lahayd waa xumanaan xumo u aqoonin ay ka mid tahay nolosha caadiga wuu qadeeyey iyo inan buu la kulmay it's the same aad wax cunto iyo ina gabadh israacdaan no difference markuu inanku jaamacadda joogo cultureka meesha yaalla wax u dhexeeya ma jiraan waa laba wax oo nolosha caadiga la sameeyo ka mid ah idan shahwaatu nafs tiro badan ayuu la kulmayaa waa dhanka kalena shubahaad badan buu la kulmayaa oo ta kasii khatarsana
wax diintiisa ka shaki geliya hadduu qofkan waxba umaad soo sheegin malcamadiina faatixada la soo qaybsiiya ama 10 jis buu hayaabaa la yidhi laakiin wax kaloo uga dambeeya ma jiraan dabeetana su'aalo tiro badan oo jaamacaadku sideedaba waa meesha qura ay taallo afkaarta waddanka taalloo dhami profesorada joogaa waa kala wada mabaadi ardada joogaa waa kala wada mabaadi markaad jaamacadda joogto waa goob dagaal oo afkaarta lagu dirirsan yahay left iyo bidix iyo midig iyo mid fog iyo mid dhow iyo mid liberalism iyo mid environmentalist iyo mid kale wuxuu dhama waa jooga wax bini aadam la sheego una aragti la sheego meesha ay ku urursantahay la isugu wada keenaa waa jaamacadda markaa waxaa jooga professor khubaro waxaa rumaysan iyo arday waxaa la kala safan iyo mid yaroo muslimo intaad ku soo dhex turtay maran aan waxba isaga ku jirin waa maran yihiin iskuulka waa laga yaabaa inuu top yahay A plus ama A grade ama B plus inuu yahay arday muuqda markay waxbarashada materialka tahay waa suurtagal laakiin waa maran yahay xagga kale kana waxa ku dhacintooda badan inuu jabo oo laba midun inuu ku dhaco haddaynu dhis over 70% ba diin la'aan ma ilaah ma jiro aan rumaysanayn inuu groupka galo haddii aanu gelin kuwaana inuu galo kuwa sidii aan ilaah jirin u noolow qaarna waxay rumaysan inaanu jirin qaarna waxay rumaysan yihiin sidii aanu jirin u noolow that means nolosha isku xidhiidhiyin feel free xorriyad dareen sidii aanu jirin u noolow kaasina waxaa laga yaabaa xagga waxbarashada ama xagga shaqada ama xagga dhaqaalaha inuu guulaysto laakiin waxaad adigu wadatoo dhan wuu ka baxay soomaalina maaha waa kafaanaya dhaqan soomaaliyeedna ma haysto inaanu muslim ahaynbana waa suurtagal soomaaliya wax loo diraya eeyoyinkood wuxuu soo diriyay reer hebel baa halkan jooga iyo waxaana kulama rumaysnaa idan waa nin faranjiyo ka mid ah dadka waddanka jooga waa nin ka mid ah dadka waddanka jooga mushkiladeennu waa taa maxaa xala haddaba mushkiladeennu waa taa waana waaqacaan la noollay ilmahan yarina garar buu leeyahy waayo dee intaynu badweyn dhigna baynu waxaanu idhi dabaalo ragaa tahay amba waxaan ka soo baxay intaasoo dagaal iyo intaasoo waddan baan ka soo booday iyo intaasaan soo maraya nin baa alla kaa dhigay adigaaba waxaad cuntiyo meel aad u hoyataba helaye ka dabaala dunida baynu nidhi marka waxaynu aragnaa innagu inaynu kadeed soo maraye isagu nimca ku kor inuu yahay inuu laakiin isagaa kaa dhib badan adigu marnaba dhib caqliyeed maad la kulmin dhib diineed lamaad kulmin dhib shahwadeed lamaad kulmin dadaad af iyo dhaqan iyo diin iyo akhlaaq iyo values iyo wax walba la wadaagtaad la soo kulanta waxa ugu badanaa waa isdisheen oo kala cararteen waxa ugu badanaa adigu aad la kulantay intaasay ahayd laakiin ninkan intaad balaayo madaxa u galisaad waxaad leedahay waa inaad survivtaa ninkan raggii wuu ka baxaa dhibta raggaa loo sameeyey maxaa xala xalku waa wax cad oo la garanayo laakiin inagu ma yeelaynaa weeyaan xalku waa wax cad ee inagu ma samaynaynaa kow qofka bini aadamkaa shubahaad baa ka hor imanaya ama waxaan leenahay challenge fikriya oo caqadiya oo diimeed iyo mabaadi'eed baa ka hor imanaya wuxuu u baahnaa qofka kani inaynu tallaallo tallaalka soo ma taqaaniin tallaalku waa waxaad mustaqbalka ugu sii tala gashay waa qof environment uu ka jiro xanuuno aad rabto inuu ku noolaan karo safena uu ka ahaado biniaadamku bergii hore reer baadiye ahaaye beeraleyda ahaye kala fogaa xanuunada isma qaadsiin jiray xanuunaduna wax yar bay ahayd manay faafi jirin metropolianka markan la noqday 20 milyan iyo 30 milyan magaalo qura loo wada degay ee wax walba la isku darsadaa xanuun oo dhami yimi waxaan oo dhami waa industrial systemkii wixii ka ratibmay xanuuno cusub iyo kuwii hore faafistood iyo baliya baaskar oo dhami laakiin dadkii waxaan samaystay waxay u fakereen inay waxa ka hortagaan oo warintaynan maranin Yurub xanuuna ka dhacay wadannada qaarkood 3 meelood marka laga dhigo meel baabi'iyay waqtiyadii ay waxaan bilaabmayeen wadan dhan oo 1/3 hadduu 3 milyan 10 milyan mar qura wada dhibatay black days kay sheegi jireen laakiin way fakereen waxay u fakereen war dadkii waa kan magaalo isugu yimo waa tan dhibti sii badanayso dadkii uu isdhexgalayay how they can survive sidee u noolaan karaan therefore waa la maalgeliyay baadhitaana la sameeyey kan baa la sameeyey waxaa la gaadhay in la helo aqoona in dadka la tallaalo tallaalku waa xanuunkiioo nasakhanintiisa badani baa lagugu mudayaa oo qofka biniaadamka ilaahay jirkiisa wuxuu siiyey difaac heegan ku jira difaacaagaas baa waxaa la barayaa xanuunka noociisa dabeetana weerarku bilaabaya sida loo dilaabo markiiba baranaya markuu barto wuu record garaynaya yani salaaya lamfaawiya white blood cellskaagu waxay leeyihiin T cellsku qaybo sida dabaabadaha iyo kaarayaasha iyo ciidamada u dagaalama
qaybo gantaala rida qaybo wax basaasa qaybo qoraal la sameeya waxaasoo dhan ilaahay wuxuu ku kaydiyey dhiiggaaga cad white blood cellskaaga waxaasoo dhan leh xanuunku markuu jidhka soo galo qolaa basaasta waxay sheegtaa wax dheeraadii inuu jidhka soo galay waxaa loo dalbadaa ciidamada madaafiicda qaybo ka mid oo ku garaaca la yidhahdaa haddii madfacaasi dilo rikoodhkaa lagu qoraa markastoo xanuunkaasi yimaado madfac hebel buu u baahan yahay ku dhufo hadduu madfacaasi dili waayo t cellska qaybaha kale t8 t4 baa loo dalbadaa oo ah ciidamada kaarayaasha iyo kuwa dabeetana dagaal baa ka dhaca dagaalkaa waxa sababma waxa ka dhasha malaxdan iyo dheecaamada tan iyo waxa kani bay yidhahan waa shuhaadadii meesha ku dhimatay labadii kooxood isgalay wixii meesha kaga dhintay waa waxa kan xumadan iyo waxaan kaa karayaa bay leeyihin waa dagaalkaasi wixii ka soo baxay idan jidhkaaga ilaahay baa diyaariyey waxaa lagu talagalay markaa diyaarintaada in la baro xanuunada qaar si marka yimaadaanba uga takhallusi karo talaalku waa intaa uun markaa waa in saa lagu mudo dabeetana xanuunada markastoo jidhkaagu dareemo instantaneous inuu uga bixi karo waxaan leenahay qofku intuu yaryahay wuxuu u baahan yahay difaaciisa jidheed in la dhiso sidaa difaaca jidh aynu u dhisayna dhakhtarka lagula ordayna usoo tallaalayno inaynu difaaciisa caqliyeed iyo caqiideed inaynu dhisno inaynu barro ilaahay iyo jiritaankiisa inaynu barro nebi maxamed iyo nebinimadiisa inaynu barro kitaabka qur-aanka iyo saxiixnimadiisa inuu xagga alle ka yimi inaynu barro tawxiidka iyo aakhiro iyo inay jirto inaynu barro maalin la xisaabtama waxaasoo dhamme adilo caqliya naqliba waa leeyihin adilo filosofiya adilo caqliya adilo maangala oo qofku hadduu si fiican u barto aanu hadhow jabaynin uu noqonayo qof tallaalan laakiin haddaad qulala xafidsiiso dee ku badbaadi maayo ayuu badanta ilaahay si kale unu badbaadiye mooyaane qur-aan korka laga qaybay bale inagana waa soo wadnaa waa qaybsiinaa 2 sano markuu ka maqan yahayna midh kama yaqaano imse xufaadaa la soo saaray bal suuqa galoo weydii kuwa daroogada iibiyo jelesh ka buuxa in badanoo ka mid qur-aanka way hayn jirta imikana xabad ka garan maayaan idan systemkaynu wuxuu wadnaa inaanu productive ahayn waxaynu ka garanaynaa productkeenna systemka markaynu wadnay wixii ka soo baxay muxuu noqday wixii ka soo baxay wuxuu noqday inaan faranjiyoobay iyo inaan daroogada cabay ama jeelka galay ama dadka boobay ama tuugu noqday ama gaanga noqday labadaa inan baa inoo soo baxay way yartay inan soomaaliyeed multazama ma odhanayna ma soo bixin laakiin marka number wise loo eego in misay ka yihiin inta aynu soo saarnay inan soomaaliyeed oo af soomaaliyeedna garanaya diintiisana garanaya waddankana ku noolaan karo aqoon lahoo shaqaysan karo xoogsan kara inan iyo inanba intaynu soo saarnay waa intee intaynu see los garaynay si kasta baan u los garaynay waa intee see intay isku yihiin inta isku yihiin waxa ay sheegaysaa schooling systemkeen iyo waxbarashadeen iyo masaajidkeen iyo malcaamadeen iyo systemkeen iyo waalidkeen inuu guulaystay iyo inaanu guulaysan bay sheegaysaa waxay sheegaysaa waddadaasi productska inoo soo wadaa noocay yihiin bay sheegaysaa sida ogeed waxaynu u baahannahay ilmahan inaynu difaaciisa dhisno oo caqiidadiisa dhisno oo uu noqdo mid isdifaaci kara walidaalik baa ambiyada qur-aanka markaad eegto waxaa rasuul la soo diray qur-aanka markaad eegto waxay ka bilaabaan qadiyatu tawxiid dadkan marka hore la rabaa in la tallaalo waxaa la rabaa mabaadir rigid ah oo qofku hadduu qabsado aanu xaqa markuu arko aanu waxa kaloo dhanba hadduu la arkayo aanu weecweecanayn inuu helo si awgeed baa ambiyadoo dhammi ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru ka bilaabaan tawxiidkaasaa lagu sugaa qur-aanka inta ugu badan leh aakhiro iyo ilaahay buu ka warramaya aakhiro iyo ilaahay labadaas oo ah labada rukun ee tawxiidka ugu waaweyn ayuu inta ugu badanna ka warramaya marka waxaynu leenahay haddaynu rabno inaynu dadkan badbaadin karno waa inaynu schooling systemkeenna ama iskuol dhammaystiran ha noqdo ama weekend school ha noqdo ama after school ha noqdo suu doonaya ha noqdo laakiin system qofkan caqaa'idiisa iyo diintiisa bari kara waa inaynu keennaa system ilmahan tallaali kara waa inaynu keennaa ka labaad ilmahani wuxuu la kulmayaa taxaddi akhlaaqiya oo meeshan uu tagay waa meesha rag iyo dumarba laysku dhex jiro adigu lamaad kulmin waxa aad si leedahay gaal baad la nooshay iyo gabadh qaawan baad leedahay waxba maad arag waayo aduu 10 qof oo shaqada unbaa is aragtaan inta ka dambaysana maqaaxida soomaalida iyo masaajidkaad joogta cid kaloo ay is aragteen ma jirto laakiin ninkani bedweyn buu ku jiraa laakiin waxaan leenahay haddii ay caqiidadu dhisanto oo qofku valueskiisa uu dhismo iyo waxa uu qiimaynaya oo uu dhismo qofku wuxuu saxa u yaqaan iyo wuxuu qaladka u yaqaana markaasay ku filantay ilaahay ka cabso iyo waanada iyo aba dhowrsanood marka hore ma aha waa markay kuwani dhismeen
ayaa waxa anfacaysa ittaqi illaah inaad ku tidhaahdo war ilaahay ka cabso waayo dareenkan iyo aakhire iyo ilaahay jiritaankiisi wax uu kula rumaysan yahay marka ittaqi illaah markaasay wax taraysaa si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayay 7 aakhiro carshi raxmaanka hadhsada waxaa ka mid ah shaabun nasha'a في عبادة الله ويلقوا بربارية إلهي عبادة لا ترينجريي وحنبي قال عليه الصلاة والسلام إن ربك لا يعجب لشاب الله صبوة له إلهي والله يا بننا اللي يراه وآن وعد لهين ومن ساسوجد بقى إلهي قرآن وحنا قلت المامية ويل اللي يراه وريركو دي كتجي لقاك عيي ولا إبسدي وأضون لقدكتي وقري بقرطوية شوغا وبقردي هنجريسي boqorku tuuqabay hunguraysay oo diidan way isku dayday inay xoog ku kafsato waqallaqat al-abwaab wa qalat hayta lak wax walba intay wagaajisay tiri soo dhawow oo ku yiri macaad allah ilaahay baan ka magan galay oo markuu diiday ay istiri kufso oo cararay oo orodkii albaabka uu kula kulmay ninkeedii oo saaka ka baxsaday oo haddana khidad kala degtay oo ay leedahay la in lam yaf'al ma amuru waxa aan ka rabo hadduu sameyn waayo لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين والله حدي دونا كو دلوبو كمد نقون دونا او إلهي بريا يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إله أنا أكتيد حبسي قال لك كالقعيل بدني وحي ويريان يعني معتقد كي سادسنا إلهي حبسي دي ساكو بيريد ساد رادد بو حبسي كدورنا يينو زينيستو ومنزل السريسة إلهي قرآن كمركز كله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هذا ورسنادان دلن يرada wixii aan helaynini waxay ku guursadaan waxay leena qofku markuu aqeedadu dhisanto ee akhlaaqiyadka lagu treengareeyo markaas uu dhismaya qof jira noqonaya qof jira markuu noqdo wixiisu ku faanaya marka waa mu'tazun bidiini hada waxa laga yaabaa xataa haduu salaada tukanayo ama aan ka sameeynayo isagoo la khajilsan inuu tukado ama qarsanaya سؤال يرونا لو يديه وحكى مده شيخ مسخوش من اللي تكون كره ومحا صلاة هي مسخول سكو كانه يعني وان دين دي سلا قرصانه يو خجل سنه وسلم ميلات كله مطان عدك كو ارق markaad foorarsanayso wax bini aadam isaan ku arag meel gaar ah waan dad ku arag yani waa mu'taz baanu hayn diinta saanu kalsoonidii nafahan buu u jabay in badan dadku waxay maqlaan oo ka sheekeynaya nukadka gaandi laga sheego waa nukta maaha hatta qoraaliyadu amaan arag waa nukta la sheegay waxay dhaadaan Mahatma Gandhi ninkii la oran jiray nin qaanuunyahan oo filosofa oo falsafada pacifismka la yiraahdo dunida ku faafiyay in nabad wax lagu raadsado oo la dagaalamin oo Indiya xorriyadeeda uu soo dagaalamay buu ahaa soo halgamay marka wuxuu rumaysnaa diintiisii buu haystay hinduismkiisii wixiisii hindusku waxay qaataan laba goob cadcad mid xagga sare laga hoodo iyo mid inta halka la duuduubo dabada la geliyo xagga dambe la geliyo كان وسترن كان باي كلمين أولير يلا بدأ سوق هذا شيء وانا في رقاونا أقونا هنوان لوير ولا قرنا يوم معروفة برشدة نقامية لكن كل جركي سوي لا شيء من إنجليز بقى وحكوا يدي بيدادين أو طايحرن أياكو يدي what's this مرة يرد بجلس كوا دبده وقشرته يقول روح عند ضبطك الشتوى محي كم هو لنا يسنا سؤال بويدي وحكوا يدي what's this بالك يراي وهلكم كوحنا طيب this is neck طيب كان هو قاركو حد and this is back طيب يسنير يعني مرة ننا قارتو صدق ننا دبادو صدق وأنا مرة يعني وحوينو ليس محا أنا جم مرة إذا كدقي ويان وحلا سويدية هذا أنا كدقي وحلا قبله أدب مرة أنت قارتو كحد إلا لا تصدق أنا متبان دبادك الشذي مركا محا أنا جم مرة إذا سؤال قال يعني إنك أنا وحكو فانا يا ومعتز كالجر كيسة رقم كيسو كفانا يا dunidu ma hadda qamo waxay ku kala sareeyaan mashaakilkeena haysta waxa kamid ah wixii laynaga hormaray maynan raadacayne waxaan lagu hormarin baynu raadacaynayna firsaraga dunidu aqoon bay ku hormartay science iyo waxbarasho kamaynan raadacayne wax kale aynu raadacaynayna dunidu ma dhafo raxiir iyo isqaawin iyo marada la daldalooliye iyo khibrad la cabamiya lagu hormaray wadan bini aadam oo ku hormaray miyaa naqmasheen this is a culture of a people أما هو نكسن هذا ما حماده ودغن داد سمايستي أولي لكن ما ها أقون ما هو وحلا سوفانه وهي هيدين وحين نقفانه مرضين نين نقفانه دغن كين نين نقفانه داد نمدين نين نقفانه إذا وحين لنا هاي قف مركو عقيدة دا إيا دغن كهله إيا أخلاقيات كاي فاليوس كمركو آمنة با وحي كان سنسا إنه وحي سقفاني كرا
شيء صدحادن ku gabagabeynaya waxa weeyaan mushkilatu alfaqr mushkilad wax la'aan ah jirta waa inuu nimi qaxoontaynu nay dad madoobaynu nay shaqadaynu halawa shaqooyinka dadka ugu hooseeya caruur badanna waa dhalay idan dhaqaalaheenu wuu hooseynaya standard of life keenu wuu hooseynaya waayo familigeenu wuu ka badan yahay familiga kale dhaqaalahayna soo galana waa ka yaryihiin maxay dhaqaalaha kale raadayn wuu samaynaya laakiin waxaynu u baahannahay inaynu dadkeenna barro callimhu kayfa yastaad bay yidhaahdaan miskiinka wuxuun lama siiyee siduu u ugaadhsadaa baa la baraa innagu aragti baynu kala nimin wadannadeenni odhanaysa qofku ama ilaa jaamacad ha socdo ama aqoon la'aan ha iska ahaado dunidanna shaqada ugu badan ee bini aadamku qabta waa xirfad dadkuna wada IQ-goodu ma wada sarreeyo ma wada hadda jaamacad ka wada bixi karaa jaamacad dadka wada baxayna shaqo ma wada heli karaan waxaa muhiimka ah inaynu baranno xirfadaha waddanka yaalla oo dadku ilmahaga haddaad arkaysa inuu C grade ama D grade ama wax ku dhadhow joogo maxaa jaamacad kaga lugoynaysa ama inuu kasii dhaca umaad rabtaa oo dabeetana darogada iibiyo waxaa ka roon inaad xirfad u wareejiso inuu computer barto inuu qasabada barto inuu gawaadhida saa loo sameeyo barto inuu electronics xirfad uu ku xoogsan karo callimhu kayfa yastaad waa inaanu barraa qofkan siduu wax u noqon karo innaga waxeennu ma waxa weeyaan ama jaamici noqo ama suuq joog noqo xamaal noqo xirfadda qura aynu garanayna waxa weeyaan soomaalidu dee laba xirfadood umay dunida la wareegtaa mid waa darawalnimo dunida meel kasta aad joogto soomaaligu xirfadda koowaad u yaqaano waa darawalnimo taxi kaxee bas kaxee kan kaxee waa darawalnimo xirfadda labaad aynu naqaanayna waxay ahayd trade waxiibintu iyadu yurub kama socoto oo shirkad waaweyn baa cunno haysta dhar haysta waxba ma iibin karno waxiibinteena yurub waxay ku soo aroortay manqaaxi yar iyo meel yaroo madow ama dukaan yaroo dirac dumar iibiyo inagunba wax iska iibinaa iyaga waxba kama iibino kontokeeni soo qaxaynba wax kala iibsanaa idan xirfadda qura inugu soo hadhay waa maxay waa driving marka dadkeenoo dhan ma tagsiilaynu tababaraa iyo xamaal maya waa inaynu tijaabinaa wadkeenna intuu odhan lahaa aabahina darawalba ahana darawalbaa noqday inaynu farsamo darawalnimada ka fiican barro maxay callimhu kayfa yastaada waa xirafkan waddanka yaalla ee farsameed haddii aynu jaamacad ilmaa ka bixin kari weyno ama awoodi kari weyno ama ribanimadeeda diidnay ama kan diidnay duruqyo badan oo kaloo loo wareega baa jira inaynu barro siday wax u baran lahaayeen isla markaana waxay keensanaysaayoo labaadna hadduu diin iyo caqiide iyo dhaqan fiican helo wuxuu baranayaa in la xishoodo oo aan wax la xadin oo aan xashishad la iibin oo aan suuqa xun la gelin ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dad muslimiin oo fuqara ah yaxsabuhum aljaahilu aghniyaaa min atacafuf baa ilaahay yidhi dadka aan xaalkooda ka warhayni dad waxaystay moodayeen dhowrsanidooda daraaddeed hadduu ilmaheennu intaynu wada korin kari weynay wax wada bari kari weynay dhowrsanidaan barro youtube noqonin bulshada kusoo kordha ama drogista bulshada kusoo kordha ama kan kusoo kordha yuu noqonin ama waa inuu barraa sidii uu u ugaadhsan kari lahaa isla markaana waa inaynu barraa inuu noqdo qof dhowrsanaan kara sala allahu calaa maxamed wala alihi wasallam